sida ninka dukaanlo habeenka u xisaabtami ayaa la doonayaa habeenkii nafta in loo xisaabiyo. Umar ibn al-Khattab Allah raalli ka noqday ayaa oran jiray nafteena xisaab inta la ina xisaabin. Amalkiina shar iyo khayr waxaad qabatay maalinkii miisaanka saar. Boogiga qalin qaado. Subaxdii markaad kacday ilaa qabalku ku dhacay sharkaagiina qor khayr waxaad samaysana qoro. Is xisaabi. Hadaad adduunka dusheeda isku xisaabisid oo adduunka dusheeda amalkaaga miisaanka saaratid waxa ku fududaanaysa xisaabta aakhira ku fududaan. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد بأن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله إلهي بانكو حمدنينا. meel kastoon joogno xaalad kasto oo aan ku jirno zaman kasto oo aan joogno waxa la inooga baahan yahay marna inaan ilaahay aan halmaamin. Allahiina abuuray ee ina jirsiiyey ee nolosha adduunyada inagu daaqay ee waxa mid kasto innaka inaga mid ah haystana Allihii siiyey dhimashadana Ilaahay ku inagu xukumay qiyaama inuu jiro layso soo saarayo la xisaabayana Allah inagu qasbay. Allahaasi inaan mar walba aan xasuusanaa oo aan is xasuusinaa diinteena wanaagsan ee macaan bayna faraysa. haddaan magaalada joogno iyo haddaan mi joogno haddaan masaajid joogno iyo haddaan suuq joogno haddaan safar nahay iyo haddaan nahay xadar haddaan yar nahay iyo haddaan weyn nahay dhammaanteen ilaahay waxuu nagu adoonsaday inaan ilaahay aan aamino oo ilaahay aan caabudno oo ilaahay ka cabsanno. ilaahay mar walba xasuusnow halmaamin. adduunyadan aan joogno waa daar al-ikhtibaar waa layna keenay. waxaad haysatana waa lagu siiyey. waxaad haysata ilaahay ha ku iloobin amarkiisa. إن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن الدنيا حلوة خضرة أدويد وعقار وانا معان وإن الله مستخلفكم فيها إلى هنا أدون كان ماركتان ينكو نقودح أبورتي وإن قاركينا ويكودح دمانيان قاركينا ويدلانيان فينظر كيف تعملون. sidaad adduunyada dusheeda intaad joogtaan aad u camal falaysaan buu ilaahay eegayaa. nolosha adduunyada si aad u gudanaysaan baa la eegayaa. ma sidii ilaahay jalla wacalaa uu raalliga ka ahaa baad ku gudan mise si uusan ilaahay raalli ka ahayn baad noloshaada ku gudan. dukaan ninka furtay habeen walba wuxuu rabaa inuu macaash la soo hoydo. ninka tagsiilaha
gaadhiga tagsiilaha magaalada dhexdeeda kaga shaqaysanaya ama baslaha habeen walba wuxuu rabaa masaariif iyo macaashka inuu la hoydo ayuu rabaa habeenkuusan waxba la hoyan waa khasaaray ugu taagantahay isaga xaggiisa hal maalin keliya oo ninka gaadhiga watee tagsiilihii uu waxba la soo hoyan waayuu ka murugoon oo uu ka calaacali 70 sano 60 sano 100 sano 80 sano ayaa ilaahay adduunka kugu siiyay fursad banka qiyaama markaa tagtid haddii laga idhaahdo ka waran 80kii sano oo ku soo khasaartay khasaaraha ifku qofka soo gaadha waa laga kabaa laakiin khasaaraha qofka aakhiro soo gaadha cid ka kabaysa ma leh فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون والعياذ بالله خسارها إفك قفك سوغاري والله كبي أقل با أيا لها أقل كيبو دات كان قادو أودمي والله دسي تعلين تيبو كدعي سكلا أمبو هدنا أونو لأنو نرسي أودبرن tijaarad buu lahayo tijaaradii baa ka baabaaday dib baa laga yaabaa inuu isku soo qabto oo gacan la siiyo la caawiyo laakiin banka qiyaamo qofku markuu yimaado haddii la yidhaahdo hebel uu khasaaray oo 70kii sane 60kii sane adduunyada uu joogay uu ku soo khasaaray haddii la yidhaahdo khasaarahaasi cid ka kabaysan bala qofkaasi nicmataani maqbuunun fiihima kathiirun min annaas الصحة والفراغ بالنبي قال عليه الصلاة والسلام لابا نعمدود آدو واوين أي ددكو أدونك إنتي جوغان أي ماركتاني كودك ميهم بالنبي قولي لابا نعمدود وفراغ يا عافماتك ويان لابا نعمدود واوين أي دد بدنو ما أنت أدونك جوغ هوس مريسا غبنا فلان مغبون معناه يقوحي علماء كم معنايان علماء اللغة بدا عدي مقالة اللقو إيبين يبنقلك $1 ayaad ku faraqdood ku iibisay $10 laba shay oo kaliya markay gacantaada ay ku hadhay ayaad ogaatay badeecadan inay joogto $100 meel aad ka soo qabato ma haysa marka wixii ba gacantaada way ka baxeen labada nicmadood buu nabigu leeyahay dad badan oo maanta adduunka jooga way ku dagman yihiin as-sihhatu wal faraagh caafimaadka ilaaha ku siiyay intaad caafimaadka haysa ilaahay caabud اغتنم 5 قبل 5 شن نعمدود انتاد هيستid buu nabigu yiri shan ka horjeeda shanta nicmadood intaysan kugu dhicin uga faa'iideysay buu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam aakhiradaada firaaqaka qabla shughlika intaad gacan banaan tahay ee wax ku mashquulay wali aanad helin firaaqa ka faa'iideyso hadaad bari aad mashquul noqotid firaaqa maanta aad haysatid ma haysanaysid intaanad mashquul noqon ka hor فراغاga uga faa'iideyso intaanad ka mashquulin ilaahay taacadiisa غناك قبل فقرك intaad qaniga tahay ee baahidaadu ay urursan tahay ee xaajaadkaagu ay ku daboolan yihiin intaanay baahi ballaaran kugu dhicin oo taacada ilaahay ku seejisana ghinadaada uga faa'iideyso sixataka qabla saqamika buu nabigu yiri intaad caafimaadka haysid caafimaad qabtid intaanad bukoon ka hor uga faa'iideyso nicmada diinta iyo taacada ilaahay uga faa'iideyso حياتك قبل موتك انت nolosha aad haysid wali aanad dhiman mar hadii dadku ay dhintaan waxay oranayaan ilaahuna cali laakiin cid soo celinaysa ma jirtee inta aad nooshahay intayna geeridu ku iman nolosha geerida ka hor ka faa'iideyso oo noloshaada geerida uga sii faa'iideyso ila mar hadii la dhinto amalkii uu go'aya amalkii adduunyada lagu soo qabtay abalkiisa baa bilaamaya marka la dhinto shababaka qabla haramika inta dhalinyarada aad tahay ee xooga aad tahay ee uga faa'iideysay intayna da'du kugu imaanay aanad gaboobin daanan lagu qaban ee moodku ku qaban ka faa'iideyso dad baa marka la qabtay baraarugayaan hatta idha jaa ahaduhumul maut qala rabbi lawla akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون حتى إذا جاء أجلهم أجشود مركي كسو حاضر تبا إلى هيدي أما متكود أجشو مركي كتما دوحو رندونا
rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib ilaahow in yar haddii ajashayda dib loo dhigi lahaa fa asadaqa wa akun min alsaalixiin waa sadaqadaysan lahaa oo dadka wanaagsan ee suusuuban baa ka mid noqon lahaa waxaa la odhan doonaa walan yu'akhir allahu nafsan idaa jaa ajaluhaa naf haddii ajashu ay ku soo xaadirto dib loo dhigi maayo baa ilaahay yidhi saacaddeedii hore loo dhigi maayo dibna loo dhigi maayo horena loo soo dhigi maayo qabrigii baa haddana la geeyey qabrigii markuu galo waa ka odhanaya rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan rabbi irjicuunii ilaahow celiya igu celiya adduunkii maxaan ka soo qaban ma beeraan soo falan ma ganacsi baan ka soo shaqayn ma suldad iyo siyaasad baan raadin may lacallii acmalu saalixan haddii adduunka maanta laygu celin lahaa oo mar la ii qabashayn lahaa waxaa laga yaabaa inaan camal wanaagsan ka soo shaqayn lahaa salaadaan tukan lahaa soonkaan la iman lahaa zakadaan bixin lahaa sadaqadaan bixin lahaa waalidkaan u samafali lahaa jaarka xaqiisaan ilaalin lahaa wanaag baan ka soo shaqayn lahaa wax wanaagsan haddana bankii qiyaamaa la keenay muxuu leeyahay walow taraa idi lmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan innaa muuqinuun banka qiyaamaa la keenay waxau leeyahay ilaahayow maanta xaqiiqadii baan arkay maqalkii baa ii furmay oo araggii baa ii furmay oo maqalkii adduunyada aad ku qabtay maqal muunan ahayn may maqal saxa ma ahayn haddaad xaqa aanad maqlaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigan taha wuu xidhan yahay araggan adduunka dusheeda ilaahay kugu siiyey haddaad xaqa aanad ku arkaynin oo noloshan adduunyada nolosha ka dambaysa aanad arkaynin nidaamkan caalamku u socdo haddaad qudradda ilaahay awoodda ilaahay aanad ka dhex arkaynin oo dadka dhimanaya aad ku cibro qaadanaynin oo ka faqiirka aad faqrigiisa ku cibro qaadanaynin oo ka bugtaantiisa ku cibro qaadanaynin oo ka lixaadkale lixaadkiisa ku cibro qaadanaynin araggaagu sax maahayna wax kale aad arkaysa rabbanaa absarnaa haddaa ilaahow indhihii noo dilaacayna oon aragnay xaqiiqadiiye maqalkiina hadduu noo shaqaynayaa oon maqalkii dhabtii aan maqalle ilaahow adduunka dusheedii nagu celi camal wanaagsan baan ka soo shaqaynaynaa innaa muuqinuuna annaku maanta waxaa nahay kuwa yaqiinsan ilaahay la kulankiisu xaq inuu yahay kuwa garanaya ayaa nahay ilaahow adduunka nagu celi bay leeyihiin ma maqasheen weli qof la soo ceshay maa samicnaa fii aabaa'ina alawaliin adduunka mar haddii laga baxa laguma soo noqdo وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير عقلك ما أنت أدونك تدخل لقو شيء يلي وعقلاء وخبراء وإن ديرجرته محو قرتا بقول كسنة صوت هي اسبدل كجيسك أفريقيا كدعيو كفالوضع صلاة الصبح ما تكذا ما تكذو saacadaha ilaahay samada adduunyada uu iman u leeyahay waxay weydiisan hansiye ma yaqaanayo ma kacayo ilaahiisa ma baryaa may laakiin waa professor khabiir indheer garato oo yaqaana isbedelka geeska afrika ka faalooda aqliga haddaad ku garan weyday allahii ku abuuray aqli maaha indhahaagan haddaad xaqiiqada ku arki weyday araggii saxda maaha qalbigaaga haddaad ilaahay ku abuuray aad ku aamini weydood macrifada ilaahay qalbigaaga ay ku degi weydo qalbigaagu ma noola u dhintay maqalkaaga haddaynan xaqa aad ku maqlayn oo xaqa marka lagu sheega aanad joogsanayn oo xaqa aad ku dhegaysanayn oo xaqa aad u raaricinaynin maqalkaagu ma shaqaynaya ka dhigan tahay لكن مالين بو شقين دونا يوم القيامة قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه
إذا دعي الله وحده كفرتم وإن تشركوا به وإن ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم صمه ويشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير. ربنا ereygan rabbana uu soo noqnoqon doonaa meelo badan qur-aanka. ajasha markay imanaysa rabbana buu qofku leeyahay, qabriga marka la dhiga rabbi buu leeyahay, banka qiyaama rabbi buu leeyahay, naarta dhexdeeda rabbi buu leeyahay. wanaadow yaa maaliku liyaqdi calaynaa rabbuk, wanaadow naarta dhexdeeday ka dhawaaqayaanay leeyihiin yaa maalik, waa malaga furaha naaraha ayabay ku leeyihiin rabbigaa noo weydiin qudhaha nagaga jaro han iska dhimanee meeshan ku jiri kari mayne. 40 sano kadib uu u jawaabayuu leeyahay qaala innakum maakithuuna, ma dhimanaysaane haddeetoole halkaabaad ku nagaanaysaan. walciyaadu billaah. aakhirada intaasoo jeer bay odhanayaan gaaladu rabbana 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 faactarafna bidunuubina fahal ilaa khuruujin min sabiil. rabbana way soo noqnoqonaysaa. adduunka dusheeda haddii mar keliya laga heli lahaa inaad tidhaahdid yaa rabbi, rabbigay waa allah. adduunka dusheeda hadduu qofku ilaahay ku garan lahaa, garashada ilaahay adduunku ku gartaa aakhira anfici doontay ogow. ama garashada khalqigu banka qiyaama ilaahay ku garan doonaan ma shaqaynayso. teebaa shaqaynaysa? garashadii adduunka dusheeda ay kala yimaadeen, salaadii adduunka dusheeda ay ku soo salaadeen, tasbiixdii adduunka dusheeda ilaahay ay ku soo xuseen, daacaddii ilaahay adduunka dusheeda ilaahay ku soo adeeceen. daacaddaasi intay dooniba ha la ekaatee taasaa banka qiyaama shaqaynaysa. laakiin banka qiyaama markii la keeno garashada khalqigu ilaahay ay wada garanayaan ma shaqaynaysa ogow. caqliga wuxuu shaqaynayaa waa intuu adduunyada dusheeda ilaahay ku baray buu caqligaagu aakhira kuu shaqayn. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس عاقل، قفك عاقلك وقفك نفتي صح حسابية. هبين كيبو حساب وتضبات كيبو حساب وبشيبو حساب. سيدا الدكان قال الله حسابية الله دونا يا إن هذا وقتك قوي حسابي سيد نيكا صاحب الدكان كا رئيس مال قيسوا الدكان قيسوا بضع عدو وياه maxaa maanta iga baxay, maxaa ii soo galay. qofka bini aadanka raysamaalkiis waa waqtigaaga. waqtiguna muxuu ka kooban yahay? waa sakan iyo daqiiqado iyo saacado iyo maalmo iyo asaabiic iyo bilo iyo sanado iyo quruun la isku geeyey. waa daqiiqado, habeen iyo maalin weeyaan. waa habeen iyo maalin. wajacalna alleyla wannahaara aayatayni famaxawnaa aayata alleyli wajacalnaa aayata annahaari mubsiratan litabtaguu fadlan min rabbikum ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حصيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. maalmahan habeen iyo maalintan iyo nolosha bini aadanku ay ku taagan tahay. sanadku maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa, usbuucu maalin iyo habeen buu ka samaysmayaa, bishu maalin iyo habeen bay ka samaysmaysaa, saacaduhu maalin iyo habeen dhexdooday ka unkamayaan. bini aadankana qiyaamaha 70 sano haddii aad jirtay, 100 sano haddaad jirtay, shar iyo khayr waxaad aragtay, shar iyo khayr waxaad ku hadlaysay, shar iyo khayr waxaad samaynaysay oo lagugu soo qoray buug ayaa qoorta qof walba loo surayaa. markaasaa la odhan doonaa iqra' kitaabaka, kitaabkaaga adigu xagga ula baxo akhriso, kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba. maanta adaa iskugu filan inaad isxaabiside. cid ku xisaabisa uma baahnid. isxisaabi adigu maanta. banka qiyaamuu isku xisaabiyey. xisaabtiisii markuu rogroga wuxuu soo baxay inuu yahay ahlu naar. muxuu samayn markaa? waa kaas meel iska soo qabta ma jooga may. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليت
يا ليتني حرف التمني بو إملا إيمان دون أولا يا ليت وأدوية إنسان جوج إيمان إلهي أضيعه وما نبي محمد عليه الصلاة والسلام جد كيسي ميان راعو ميان دغن كإسلام كخد دغمو ميان دين كإسلام كصدق اتداء نص وصعدو ما أنت وان ليبان لها لكن خلاف كان خلاف إلهي أمر كيسا هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيا هل كان الدكتيب ولا هي ما لوس قصو قبتنا مله سيدا نيكا هبينك نيكا الدكان لو هبينك هو حساب تمي أيا الله دوني هبينك نفط اللو حسابيه عمر بن الخطاب الله رالي كان نقضيه أيا أورنجري نفتي حساب أنت اللي حساب عمل كينا شر يا خير واحد قبته مالك ميزان كسر بوق يقلن قعدو صباح دي مركز قعدي إلى قبل كوكو دعاية شركة جينا قر خير واحد سميسان قراء إيش حسابي هذا الدون كدو شيء ده اسكو حسابي سد وأدون كدو شيء ده عمل كاجا ميزان كسارتد وعكوف فضضان يسا حساب تأخر عكوف فضضان الله نوفض ذي marka waqtigeenu waa farwadeeni ilaahay nasi yaan dayicin inaga maanta dadkeena zamankan waxay yiraahdaan waqtiga halkeen ku soo dilaa soo yiraahdaan gaaladuna waqtiga qiimihiisa intay garteen ay yiraahdaan waqtigu waa lacag hadii wadannada reer galbeedka wadada aad ku socotay ay ka lunto oo jidka aad mareysay aad ka luntid fursad u heli maysid qof inuu isku ka taago ku tilmaamo dariiqi xaqu ka xigay ama magaalada socotay inaad lagu tilmaamo heli maysid way xukun inta gaariga halka aan joojinayo wadada dhexdeeda waqti bay ku socdo ku leeyahay waqtiga qiimihiisa bay fahmeen iyaku deena adduunyadii bay geliyeen khayraadkii adduunyada ku jireen ilaahay waa u soo saaray فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء مركي أمرك إلهي أي هالمامين براروجينتي لغو براروجي دينتي مركي كجستيني اسكدق ترين با إلهي يدي أدويدي البابة دي برفرني با إلهي يدي يك وقت قوغي أخي قليين دولك خيرات في أرلاد كجرو دم بإلا صابحين واكو أمان تدون كور نكو قوميسان أيها يكو قامين أيها إنك أنا مانت مسلمين توحوا لي قفك مسلك وقتك هل كيف كسود لا مانت إلهي بالها حديث القدس إن آذنوا يفلق هذه ونا إدي بيا إن آذنوا يقول بيا مركو يري إلهي ويل بو يا شيء إلهي وحو لي أنو ويل ملهي ومدل لا يمنى دل من دلو كلبانا هاي كلي إن آذن با إلهي لي ويفلق هذه ويفلق هذه وحو أفلق هذين يا يسب الدهر وأنا الدهر الأمر بيدي أقلب الليل والنهار إن آذن هبينك يا مالك وأفلقادين يا وزمنك أيور عايا يا زمنك نبا إلى هيدي وأنيقا هبينك يا مالك أنيقا ببدلي وأنا كان يبا إلى هيدي زمنك سيدتكم أنت وأفلقادين ما صدق هو قلي وقتك صدق قلي ما يرادين ما يرادين حاسدان كو غلay waqtiga halka ay dhigay waqtiga iga jeestay buu kooran waqtiga iga jeestay waqtiga sida ay baday waqtiga iga xun waqtiga fahmi lahay waqtigu muxuu yahay ilaahay baa kula yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru إن آذن زمنك أيو أفلقادين أولي زمنك إيقا حن زمنك حن زمنك با إيقا جيستي وقتك با إيقا جيستي وقتك با أدي كلها يمانتا إلهي وعليه زمنك هو أنيقا أمرك قعنت يدو كجرا هذينك يمالينتا أنيقا ببدل يو كينا يا أمركنا قعنت يدو كجرا كان فقير كدقنا عيد غني كدقي كري ميسو كي أن غني كدقنا عيد فقير كدقي كري ميسو كان كرو قادر عيد هوسو دقي كري ميسو كان هوسو دقنا عيد كرو قادي كري ميسو
كان مدح كدغنا عيد مدحنimada ka qaadi kari mayso كان عزينا عيد ما duleyn karayso كان duleeyana عيد ma cizeyn karayso كان hadeeyana عيد ma weecin karayso كان halleeyana عيد ma hanuunin karayso كان anigu aan khayr asiyana cid shar u keeni kari mayso amarka yaale الله بالله waxba zamanka haflagaadayn waxba makhluuqana ha qabsan oo ha oran hebel baa halka ii galay buu yiri maalin mid iska soo saar hebel baan magaalada ka mari hebel baan magaaladii u daayay buu yiri haye hebel baan nolosheeda ka xun hebel baa halka ii dhigo sida ii galay zamanka adiga kula hayay ana zamanka sida ay kale boqoran may sida ma aha qofka muuminka iimaan kala waa inuu umuuraha waa inuu yiraahdaa haday dhib ku dhacdana waa inuu yiraahdaa dhibaatada igu dhacday waa dunuub anigu aan galay weeyaan oo adduunka laga goynaya haday barwaaqo ilaahay uu ku siiyana barwaaqada ilaahay baa ku qadaray hadii walaalka ilaahay u nicmeeyana waa tiraahdaa nicmada ilaahay ku nicmeeyay hani allaka waan ku haneeyay haday walaalka balaaye masiiba ku dhacdana wala tacziidaya waxa la yiraahdaa insha Allah balaayada wad ka bixi doontaa walaal qadarka waa inaan aaminna zamanka ha aaminin ayad aamini ilaaha zamanka abuuray cilaaq la yeelo Abu Darda iyo Salman qisa dhex martay baa nii sheegay Salman Farisi buu radiyallahu anhu wuxuu damcay markaa inuu guursado Abu Darda iyo markaa uu nabigu walaalo ka dhago walaaleeyay ukhuwat al-islam ayuu ku yiri Abu Darda iyo reerka gabadha fiican bay leeyihiin gabadh ordo iga doon waa hagaag markaa dibaddu ku sugayaan aqal weyn ma waa aqal yaro Ariisha Abu Darda ba aqalkii soo galo wala soo dhaweeyay oo qoys markaa Yaman ka soo guuray oo gabdho wanaagsan ilaahay siiyay marka Abu Darda baa yiri waxaan inantiina heblaayaan u socnaa oo ayaad u rabtaa walaalkay Salman al-Farisi baan u rabaa marka bay yiraahdeen Salman inanteeda siini mayne laakiin adiga ku siinay ku yiraahdeen gabadha waligeedii mar hadduu ku yiraahdo waan ku siiyay uu ku siiyay ogow khalaas waa xaaskaagii laana waa saddexda nabigu yiri saddex kaftankooguna waa dhabtooduna waa dhab islaanay waan ku furay kaftan ma gasho way furantay khalaas nabiga ku salliya inantaydii waan ku siiyayna kaftan ma gasho waa sidaad u siisay khalaas wal iyadu billah diinta waa ka baxay qofka haduu yiraahdo waa ka baxay ogow wal iyadu billah marka Abu Darda uu yaabay gabadhii khalaas isaga la siiyay sidoo ugu sheegay walaalkii saaxiibkii Salman uu sugaya Salman oo isna aroos isku diyaariyay arooskooguna bariga ma adkayna gabadha intoo la siiyo ayaa isla markaaba saxaabiga aqal yar loo tartiibinayay habeenkaaba uu aqal galay waxayna lacagaha iyo daaraha iyo tumashada iyo hoteelada iyo buuraha la iskala dhacay ma macsiyada lagu dhisay maaha nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam inantiisa Faatima markuu Ali uu dhisayay ayagoo masjidka ka soo wada baxo isgarab socdo nabigu ku yiri Ali ka waran Faatima hadaan ku dhiso markaa uu sii jeesto oo ka xishooday Faatima waan ku siiyay buu aroosna waa taysa soo diyaari buu ka yiri oo socday inantiisii buu nabigu u tagay Faatima aabo waan ku dhisay yaad dhistay Ali baan ku dhisay radiyallahu anha way amustawi xishootay markaa bay hadasho aaba ma hadal buu ka yiri Ali baad dhistay ha Ali yar calool buuran yahay haye habeenoodna uu leeyahay habeenkii indhaha aad wax uga ma arkabay ku tidhi markaa buu nabigu ku yiri Faatima laqad zawajtuki wa innahu la aqdamu ummati silman wa aktharuhum ilman wa a'zamuhum hilman buu ka yiri Faatima inka aan ku guriyay waa ninka islaamnimada ummadeeda ugu soo horeeyay ugu soo hor islaamay waana ninka ummadeeda ugu cilmi badan waana ninka ummadeeda ugu dulqaad badan buu rasuulku yiri
barkintaana qaado qadiifadaana qaado weelkaana biyaha ku dhaansada caawar waa ku hoynaya diyaar garoob uu ka yidhi inagu imika gabdhaha waxba kuma darnee waxuma ka sugnaa Soomaa inta badan Soomaalidu markay dhisayso wiilkay kharashka badan ku bixiyaan nabigu inantiisii Faatimo markuu dhisay uu raaciyay barkin buu siiyay gogol buu siiyay weel buu siiyay marka guurkoogu u fududaa keena zamankan ee cadaabka maaha oo fududaa noloshu way fududay guurka hadii la fudaydiyay bay culimadu leeyihiin zinada inay dhalinyaradu ku dhacdo ayaa adkaan hadii guurka la adkeeyo waxa la fududeeyay oo zinadii baa la fududeeyay marka guurkeena fudaydina diyaar ma unahay waa sababta kaliya bay culimadu leeyihiin fasaadkan kula dagaalami karno guurkana la badiyo in la fudaydiyo walibana Salman Farisi banaanku taagan yahay walaalkii Abu Darda ayuu sugayaa Abu Darda baa soo baxay marka Salman baa yiri bishaare wuxuu wixii meesha ka dhacay ina kaaga warramo waa ka xishoonaya buu yiri wara xishoona ii sheeg ma la yeelay mise waa la diiday waniga gabadha adiga waa lagu diiday laakiin ana la isiyo aroosa buu yiri ana ba aroosa markaasuu qoslay wuxuu yiri ka xishoonaya adiga ma hay waa aniga buu waayo calaf ilaahay adiga uu ku qoray calafkaagii samada lagaaga qoray iyo adigan anuna dhex socday buu ka xishoon adiga ma ha buu aniga ee walaal adigan Allah ku barakeeyo zamankeen arinta ma dhici lahayd wala isku rugman laha Soomaa waa diir dhigtay ayagu waxa la baray waradeere amar ilaahay baa adduunka socda wixii ilaahay qadarin baa adduunka ka dhacay wax kale ka dhici maayo marka zamanka ayaan waxba aflagaadaynin zamankan nidaamka zamankan waa nidaam ilaahay xaqiisa ka socda ilaahay xiriir fiican haddaan la yeelano nolosha adduunku way noo macaanaan maanta dadka oo dhan waxay leeyihiin nolosha waan fahmi laanahay nolosha waxaan u fahmi laanahay waa maxay xiriirkii innakii ilaahay noo dhaxeeyay baa meesha ka baxay xiriirka haddaan hagaajisano nolosha adduunkan iyo aakhira ilaahay baa noo hagaajin ilaahay baa quraankiisa inoogu sheego yiri waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra qofka ilaahay ka baqa ilaahay ka cabsada umurtiisa oo dhan waxaan ka dhigaynaa fudayd man kanat ad-dunya hammahu ja'alahu Allahu al-faqra bayna 'aynayhi wa farraqa Allahu shamlahu wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu ba nabigu yiri qofka hammigiisa ka dhiga adduunyo waxa uu ku fikirayaa waa adduunyo waxa uu ka shaqeynayaa waa adduunyo waxa uu ku seexanayaa waa adduunyo waxa uu ku soo kacayaa waa adduunyo waxa uu ka hadlayaa waa adduunyo waxa uu eegayaa waa adduunyo qofka hamigiisa adduunyo uu ka dhiga buu nabigu yiri arrimihiisa oo dhan ilaahay bariye galbeed buu kaga kala sheerinayaa nolosha adduunyadana faqri baa labada indhood loo saarayaa faqri waligaana ka baxay baa labada indhood loo saarayaa arsaaqadana inta ilaahay u qadaray mooyaan in kala ma helo rasuulku yiri waman kanat al-akhiratu hammuhu ninka hamigiisa ka dhiga buu nabigu aakhiro macnaheedu waa maxay yani meel kastuu joogo ilaahay buu kaga cabsoonayaa salaadii buu ilaalinayaa soonkii buu ilaalinayaa xaqii dadku iska ilaalinayaa xaqii jaarkiisu ilaalinayaa xaqa dadku la nool yahay buu iska ilaalinayaa dambigu yar ilaalinayaa wanaagga ayuu ka shaqeynayaa hamigiisu aakhiro amal aakhiradiisa ka dhaawacaya waa ka digtoon yahay amal aakhiradiisa badbaadinayana wuu dhiiran yahay qabanaya mar walba ninka hamigiisa ka dhigay buu nabigu aakhiro qalbigiisa ilaahay ka dhiga qani hodantinimada qalbiga ilaahay siiya qofku meesha uu ka noqdo caydna waa qalbiga meesha qani ka noqdana waa halkee waa qalbiga lagu aan modan hebel waa nin milyaneer warqadahan maaha waxa bini aadanka qalbigiisa qinada gelinaya qinada qalbiga waxa geliya waa markuu qalbigu jeesto ilaahay macrifadiisa iyo aakhirada weynigeeda hamigiisa ninka ka dhigay buu nabigu aakhiro qalbiga ilaahay hodantinimo uga buuxiya arrimihiisa oo dhan ilaahay baa isku soo ururiya adbiyaduna iyadoo dulaysan oo u san dulaysan ay hoos timaadaba rasuulku yiri adbiyadu muuminka way doondoonan harkaaga ma aduu ku daba socda misaala daba socda ya say ku daba socda har adbiyadu baa leeyahay qofka adbiyadu waa sida harka
adduunyadu diintay la socotaa adduunyadu aakhiraday daba socotaa haddaad tiraahdo adduunyada ayaan u jeesan oo aakhiradii baan ka jeesan waxaad la mid tahay nin yidhi harkayga ayaan soo qabanayaa ma soo qaban karaysid walam yaatihi min addunya ilaa maa kutiba lahu baa nebigu yidhi ma helo qofka hamigiisa adduunye ka dhiga ma helo buu nebigu yidhi ilaa wixii ilaahay u qadaray maana wax kale ma helo marka adduunyadan ilaahay baa inagu dhex abuuray oo inagu dhex imtixaamaya marka adduunyada ka tagana diinteenu inama leh hadda ogaada adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso laakiin qalbiga ha gelin taajir noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin dhakhtar noqo laakiin lacagtu qalbiga inay kaa gelin mas-uul noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin waxaad noqotaa bay yidhahdeen culammadu sida doonta waxaa loo isticmaalaa barriga mise badda maxaase laga ilaaliyaa biyo inay galaan hadday doonta iyadoo badda maraysa oo rukaab iyo badeecad la saaray ay biyo galaan iyadii waxaa saaranba way qarriqmi soo ma qofka bini aadanka adduunka inuu ku noolaado ilaahay baa ugu talagalay inaad shaqaysataa ood wax barataa oo taajir noqotaa oo dhakhtar noqotaa oo injineer noqotaa oo caaqil noqotaa ilaahay baa kuugu talagalay noqo laakiin adduunyadu qalbiga inay kaa gelin hadday adduunyadu qalbiga ay kaa gasho adigiiyo waxa ku saaranba waad degiyo ogow dad badanba maanta way degeen abubakr sidiiq radia allaahu canh maalqabeen buu ahaa ninka ummadda ugu khayr badan buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf maalqabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa cuhmaan binu cafaan maalqabeen buu ahaa tobankii jannada loo bishaareeyeyna ka mid buu ahaa jariir binu cabdillaahi albajali ogaas buu ahaa saxaabada nebi maxamed ragga ugu qiimo badan buu ahaa saxaabada rasuulku tujaar bay lahaayeen cuqaal bay lahaayeen shucaraa bay lahaayeen dakhtaray lahaayeen umaraa bay lahaayeen fuqaraa bay lahaayeen mucallimiin bay lahaayeen culamay lahaayeen ogaasyay lahaayeen laakiin marka la eego aakhirada iyo diinta xaggaa way ka wada sinaayeen iyagu xaggaa way ka wada sinaayeen kooga amiirka ilaa kooga ma'muurka si midaatay ilaahay uga wada baqayeen si midaatay aakhirada ugu wada fikirayeen cabsida ilaahay ay ka baqayaan iyo aakhirada ay ku xisaabtamayaan waxay u dhib yaraysay ma taqaanaa inay adduunka dusheeda xaqa ilaahayna iska ilaaliyaan xuquuqda bini aadamkana iska ilaaliyaan aakhirana ay tagaan iyagoo aan waxba lagu lahayn abi bakr sidiiq radia allaahu canhu khilaafada islaamka markii loo dhiibay waa markuu nebigu adduunyada ka intiqaalay sal alla alay wasalam wuxuu ahaa bagaash luhaa dharka iyo badeecaddu suuqa ku iibin jiraa la yidhi alaabtiisii buu qaatoo degtuu saartay cumar baa arkay ninkoo sii socda kale yaa ababakar ilaa ayna wuxuu uhi dee waa shaqo tegayaa oo taladii ummaddoo dhan ba adiga madaxa lagaa saaray maad haleeli oo reerkayga ayaa ii bilin soo anuu ka mas-uul mayo ilaahay weydiin maayo muslimiintoo dhan baa looga dhigay mas-uul madax khaliifata rasuulillaah weeyaan mas-uuliyaddaa uu qabtayna lacag baad ku qaadan meesha ma soo dhigan isagu innaka maanta ka warrama ninka markuu mas-uul laga dhigay dowladda ama xildhibaan loo dooranayo muxuu socdaa bay kula tahay muxuu socdaa waa lacag fiican heshid meelahana si fiican ha u jajabsatid ila waa xildhibaankii baa la odhanaya oo loo bannayn meel walba iyagu sidaa ma ahayn mas-uuliyadda umay arkayn meesha ciyaalkooga ay ka biilinayaan mas-uuliyadda waxay u arkayeen waa xilligii ummadda nebiga loo khidmaynayay waa adeeg ummadeed ummadday u adeegayaan ilaahay ikhlaaska innakan hayna siiyo abubakar uu yaabay war ciyaalkayga reerkaygana ma haleelaysid oo masaariiftoodii anaa ka mas-uule anna kaa suuraynaynay adu noqo horta halkaa fadhiiso ma haleelaysid haddee toole waa la shuureeyey waxaa loo shuureeyey maadaamuu 4 reer u lahaa in baytalmaalka laga siiya masaariif reerkiisa ku filan neef jeexi inuu u kala qaybiya maalin walba reerkiisa hilibkaas iyo raashin ku filan 2 sano ee uu talada ummadda hayay iyo dhowrkii bilood
tiisii markay timiday godka lagu riday abibakr sidiiq allaha raalli ka noqdee inankiisii cabdiraxmaan ibni abibakar oo lacag sida ayaa baytalmaalkii yimiday cabdiraxmaan bin cawf oo ahaa maaliyadda ninkii hayay ayuu yidhi lacagtan baytalmaalka ku celi markaasuu yidhi adeer lacagta xaggeed ku wadaa jooji wuxuu yidhi aabba allaha u naxariistay ayaa igula dardaarmoo yidhi hadday taydii noqoto maanta waxaa duuyaa maanta anigu dhul baan ku lahay magaalada madiina dhulka iibiya lacagta ka soo baxda dhulka labadii sano iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka lacag intaa la-eg baan ka qaadanoo masaariiftii weeyaane igaga celiya buu yidhi intay nii soo hadhan ininku dhaxal u qaybtama buu yidhi cabdiraxmaan bin cawf uu yaabay war maxaad leedahay aabbaa ku dardaarmay sidaas in lacagta lagu celiya halkee baytalmaalka oo siduu u qaatay waa masaariiftii ininku adu qorteen oo reer kastiin iyo labadii sannadood ayuu aabbahay qoranayay dhulkii uu lahaa markaan iibinayna waxau nagula dardaarmay lacagta in halkaygii lagaga celiyo baytalmaalka lagu celiyo cumar binu khadaab baa loo keenay cumar uu ooyey abubakr sidiiq oo uu yidhi abubakar oo qabriga abubakar buu dul tegay cumar wuxuu yidhi madaxda adiga dabadaa imanaysa wallaahi waa daalisoo ku gaadhi mayna buu ka yidhi waadna daalisay buu ka yidhi sidaan u leenahay abubakar ugu dayda waadna daalisay buu yidhi labadii saniya dhowrkii bilood uu talada ummadda hayay waa ninka yidhi igaga celiyay baytalmaalka intaas xukaamta zamankeenna ka warrama waxaasi maxaa keenay waa alla ka baq ilaahay bay ka cabsanayeen aakhiraday ku xisaabtamayeen markaasaa koogii madaxa ahaa xaqii ilaahayna waa ilaaliyey xuquuqdii bini aadamkana saasuu iskaga ilaaliyey koogii faqiirka ahaa xaqii ilaahayna isna uu iska ilaaliyey xaqii dadkana uu iska ilaaliyey waa koogii faqiirka ahaa saciid ibn zayd radia allaahu canhu islaam baa ka soo ashkatootay maxay kaga soo ashkatootay dhul aan lahaa ayuu beertiisii ku darsaday tidhi weliba ceelkaana anigaa leh iyadu haddama leh ogow isagaa iska leh waa been abuurasho cuhmaan binu cafaan amiirka mu'miniinta u yeedhay saciid waa tobankii jannada loo bishaareeyey nin ka mid a saciid ibna zayd abalacwar markaasuu leey waa laga soo dacwooday saciidow wayaa ga soo dacwooday islaantaa baa kaa soo dacwootay duqda oo maxay ka soo dacwootay dhul iyadu ay leedahay baad qaadatay bay ayaa la leeyahay oo macal ceelka iyadaa leh markaasuu yaa amiir almu'miniin anu waxaan ka maqlay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh dhul uu lahayn taaka dhul uu lahayn ninka dulmi ku qaata buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha waxaa lagu cuquubayn doonaa 7 dhul intoo silsilad loogu xidho ayaa qoorta loo gelinoo la odhan doonaa jiidoo la kac lamana kici karayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka hayo ka maqlay may kula tahay xaq bini aadan inaan dulmi ku qaadan ilaahow hadday igu been abuuranaysa buu yidhi indhaha ka qaad haddilin adoo indhaha ka qaada mooyaane halkaana ay sheegaysa ilaahu ku dil buu yidhi dhulkii uga kacay ha qaadatay buu yidhi siiya waa indhabeeshay dam markaasay odhan jirtay way habaarkii saciid baa igu dhacay way habaarkii saciid bin zayd baa igu dhacay iyadoo indhalo dhulkii ay ku sheegatay isaga wareegayso indhala ayay ceelkii ku dhacday ceelkii bay ku dhacday lagamaba soo saarin halkiiba qabrigayga laga dhigo lagu aasay xaqka bini aadanku ciyaar maaha ma anuu nebi maxamed ka maqlay taaka in la egoo dhul xaqa naas ninka gardarro ku qaata 7 dhul baa qiyaamaha qoorta loo geliyaa oo lagu yidhaahdaa la kacoo jiid lamana kici kara buu nebiguha ma jiidi karaayo maanuu xadiiska nebi maxamed ka maqlay may kula tahay cusmaanu inaan dhul bini aadan aan xaqdarro kaga qaadan ilaahu hadday igu been abuuranaysay buu yidhi indhahana ka qaad halkaan ilaahu ku dil buu yidhi waxaase waa alla ka baq waxa bini aadanka xaqooga kaa joojinaya waa maxay waa alla ka baq markaad ilaahay ku xisaabtamaysa inuu ku arkaayo
وكم مغلايو آخر إني جرتنا يكون تالو حق بني آذان هذول أبردا كوديرا ميسيد لكن غور موقفك بني آذان كويلا هين وظلم كجلا بني آذان كان وظلم كجلا وأمر كويلا هي اللوبو آخرنا وخذك كسر سادرت يدول على يال إلهي إنها نص نقولنا توبت كأنه إير بنا الديود جوجنا إير وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت بري تولى نول بوحة ولا كل مدونة كما ورقبوا ماشى قبرجاك ونقون قبرجاك ونقون كما ورقبنا مركا ولا الوين عن آخرك وحسابتنا آخره مديرو إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب إلهي باشي قيامه مديرو حقنا وكادر يهي لكن نظام إلهي مرك الله في ريارين توازدود هي بعثت أنا والساعة كهاتين لو لا فرض نبي قسكو درريي فردا يا مردسدا يا فرد هذا أبو نبي قسكو قبتي مرك أبو نبي يري أنا يا ساعة قيامه سدا لو لا فرض اسكو حقا من اسكو حقنا أبو رسولك يري مرك إلهي نحن صنقنا حكبنا إلهي قولوا لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله دينته إننا ما ركتاني هم كشقينه وشقد دينته علماء يا معلمين توكلية كمسؤول ما هنا يا جماعة عدده قف كستو مسلم الدين حلبة كسارا إن النفط هذا إصلاح صح وواجب إن أمة إصلاح يجينا ددالك أتكقب قادتنا وواجب دعوة إلى الله فريضة شرعية وضرورة بشرية بين العلماء دتكو إلهي حقي صلى الله عليه وسلم وفريضة شرعية ويان وأنا ضرورة بشرية ودما مات دعوة أوباهن مسلم كيف أوباهن الصلاة الله عليه ومسكيت الله عليه وحلقات الله عليه ودين الله نصيحيه قال كي نوح أوباهن يحي إن إيمانك إسلام ما الله بندقه أوباهن يحي مسؤولية دانا حل كان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأمتي سارو يري لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب أنا النبي قمدن بيبو نبي يقولي إنك أنا أمة إنك قمدن بيسي كينا حاضر كما أنت إلى الجوغو كينا مغنقارسي فرب مبلغ أو عام سامع يكوي مغليين صحابته أنت النبي كم مغلين بيأدون كودن قارسيين هل كي مالنتي رسالة أي قارسيين بالليدي إني كسر نقطة مويانة هل كي أي دقيقة بيتاجن تايمانت إن شاء الله إنه كنا ندين تنا كشقينا وذا النيود إن شاء الله هبين دمنا وجمعة مركز كسر قريب قال كلن كدين تولي وحافظ إن المركز كون نيود وياه ومركز إلهي درت أوبح لين جيد هذا أنا عبسوني إسكبح فارما بحينه نبى الله واجد حنوك كورونا اللي بنبورنا أيه هذا كورونا لقاها لي أفر طبعا شقولك كجر مو فدي مسوق بحي وكجري بدال الشيء إسلام تيسي كوري هاي سودوان عيالك هاي سودو هذا هو هالصعود أفر طبعا شو فدي استقول دحدي سو هرجب كأوجبحه قلبي نين أديده كبحضه وعظم هذا مخلوق كبحضه والزمن كأن كنت تعلق صنّه هي أنسيد إنه وحرير كإلهي أن صوت كيصنّه أفر بلادنا المسجد أحفر أمه بهنين ومسجد قوار راحوا لي بنا صومه هذا أنت إير ساعدنا ودخل لنا إمسا الدرين كينو زيادة يا إمسا عنك الدرين كينو سبدل يا لو عن قال لنا ودينه بك إن شاء الله بليال إن شاء الله وقت يقولوا فرصة يقولوا إلى بالجماعة هذا إلهي درتي وبحايا أفر بلاد لباب بلاد فالصحية عن هيستين عن إلهي درتي وبحو يا بليون إن شاء الله إن شاء الله هذا للوسائل حكم المقاصد بعلماء إليهن مددا لبحايو ووسائل الدعوة وسائل سيدا آلات كنيمة نقضوا بيسان إنكم مجع عليهم بريقوا هري لكن برياحا وحيد هذين والله بحي هيسك هاللون لأنكم نوحي لين صور نحمرية خير ومضى ونشاقنا إن شاء الله هذا إلهي إنه نقا أقبلنا ورجيننا قبولية مهمة إمسا كل دقيستو كل دعوتي مهمة إلهي مكها أقبلي بها مهمة مسوكو سعيشي
ilaahay naga aqbalo insha Allah habeen dambana fikradiika oo ka soo wada qayb galeyna dad badan oo walaalaheena oo xanuunsan ayaa jiro ducadoona soo ducayn meen insha Allah dambigeena Allah dhaaf dambiga waalidinteena Allah dhaaf diinta Allah inoo macaaneeyo maralkeena Allah shaafiyo mawjaadkeena Allah u naxariisto amni iimaanka Allah inoo ziyaadiyo taacada Allah inoo macaaneeyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha Allah inoo hadeeyo madaxdeena wixii diinta iyo dalka iyo dadka u daacada Allah tuso muslimiinta meel ay joogan muwaafaqiin midnimada Allah siiyo nin walba uu ka kurbaysan kurbad Allah ka qaado dad badan oo xaadiriin iyo kuwa qaybin oo ducada dalbay baa jiree mid walba uu ka kurbaysan Ilaahu adaaga kurbada Ilaahu ka qaado caafimaad sariic Ilaahu sii khaatimada Ilaahu noo hagaaji waxaan ku hadlaynaa Ilaahu anagu qaban ya Allah noo naxariiso hadda noo naxariisan ayaa noo naxariisan ayaa dad noo dhaafan ayaa noo dhaafi amniga iimaanka Ilaahu noo adkee ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين